Assalaamu calaykum. Cabashada iyo calaacalku waa goobta ay ka bilaabmaan ama ay ka bilaabanto farxad la'aantu. Haddii aad aaminsan tahay inaad tahay qofka ugu wanaagsan adduunka, bal ila eeg goobtan. Sidoo kale, haddii aad filayso ama aad u malaynayso inay noloshaadu tahay midda ugu adag adduunka, ila arag qofkan. Haddii aad aaminsan tahay in muuqaalkaaga, wejigaaga iyo ka jidhkaagu aanay ahayn kuwa aanad u qalmin, bal ila arag iyada. Waalid, haddii aad u malaynayso inaad haysato ama ay guriga ku joogaan carruurta ugu dhibta badan adduunku, bal ila arag waalidkan. Adiguna, haddii aad u malaynayso inaanad haysan guri aad u qurxoon oo aad ku nafisto, maxaad ka tidhi isaga? Sidoo kale, haddii aanay wax dhadhana kuu samaynayn cuntada guriga taal, bal ila eeg isaga. Haddii aad filayso inaad tahay qofka ugu liita uguna nasiibka xun adduunka, maxaad ka tidhi qofkan? Adiguna, haddii aad daafsiisan tahay joogitaanka waddankaaga, bal ila arag waddamadan. Werwer iyo buuq haddii ay kugu hayso shaqo la'aanta baahsan ee ka jirta waddankaagu, maxaad ka tidhi dadyowgan? Dadkani waxay ku qasban yihiin inay maalin kasta nolol maalmeedkooda ka soo raadsadaan meelo aad u halis badan. Maxaad aragtay? Dabcan waxaad aragtay dadyow iyo muuqaallo aad dhammaantood ka nasiib wanaagsan tahay adigu. Ha dhaafsiisnaan waxaad haysato, waayo waxaad haysataa waxay fursad weyn u yihiin qof kale oo aan haysan. Sidoo kale, ha hilmaamin inaad mar kasta Ilaahay ugu mahad celiso waxaad haysato goob kasta iyo goor kasta. Sidoo kale, ha ilaabin inaad muuqaalkan la wadaagto asxaabtaada si ay fariintani u gaadho meel aad u durugsan. Aad baad u mahadsantahay.